kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka goobjoog oo ay sakaashadeenna TV-ga Star TV iyo Dalmar Media. barnaamijkeena waxa aynu maanta kaga hadlaynaa waana dowladda ku saareynaa dhibaatooyinka haysta qaxootiga Soomaalida ee degan wadankan Netherland. waxaana igala qayb qaadanaya barnaamijka goobjoogka caawa Muuse Xirsi oo ah sharci yaqaan Soomaaliyeed oo degan wadanka Netherland wax badan kala socda arrimaha xagga sharciga ee Soomaalida iyo Cali Waare oo ah agaasimaha ururka Samfow ee magaalada Masadaan caawiyana dadka Soomaalida ee qaxootiga. Muuse adaan kugu homaraya dowladda Netherland waxay gaartay go'aan ay dib ugu celinayso Soomaali badan oo wadankeeda deganeed qaar badan oo Soomaalida ka mid ahna banaanka ayay yaalaan marka go'aankan cusub ee Netherland go'aan soo baxay bismillaahir rahmaanir rahiim horta aad baan ugu hadcelinayaa Dalmar Media fursadan ay siisay go'aankan dowladda Holland ilaa muddo dheer uu soo jiitamayay marar badan ayaa dowladda Holland ay isku dayeysay dadka Soomaalida ee qaxootiga ah in la celiyo markii ugu horeysay ma laakiin marka celinta ugu ay istaagto qof Soomaali la celiyo ay noqoto waxa dhici jirtay in dacwooyin laga hortago dacwooyinka wadanka gudihiisa markay dhamaadaan waxa lala aadi jiray Europe hadda marka fursadda hadda timid oo dowladda u fasaxday ama ay jaaniska la helay waxa weeye in case-kii ugu horeeyay ilaa muddo hadda dhowr sanado badan ya case-kii ugu horeeyay ee Soomaali oo ay maxkamadda Europe negative siiso ayaa yimid oo Netherland ku socday marka maadaama arintaas ay dhacday ya case-kaas ay u dhacay dowladdu waxay marka fursad bay heshay case-ku European Scandinavian ka yimid baan filayaa wadanka Sweden laakiin dowladda Netherland fursad bay heshay ay oran karto okay mar hadiiba maxkamaddii sare ya oo Europe ay arinta go'aamisay jid ba idin furmay waa sida laakiin waxa nagu maqalaa inuu jiro heshiis hoose oo dowladda wadanka Netherland ay la gaartay madax kamid ah madaxda Soomaalida oo halkaasi waxa muuqanaysa inay ka heleen dariiq ay ku dhiran karaan in ay dib u celiyaan oo tijaabada hadii way bilaabatay arinta iyada ah maxad kala socotaa in heshiiska hoose uu jiro fiiladaasi wallahi sida hadda warka dadku ay u sheegayaan heshiiskaas inuu jiro ayaa loo badinayaa Soomaalida dhexdeeda heshiisyadaas noocaas oo kale hadda ka hor way dhaceen oo dowladihii intaan dowladda Soomaalida ay ku meel gaarka ahaan jirtay heshiisyo lala galay baa jiray heshiisyadaas aakhirkii dambe markii maxkamadda la isla tagay horta sidaadaba dacwadaha maanta hadii Soomaalida xaqdarro iyadoo aan waqti iyadoo wadankii nabad ahayn ay xaqdarro lagu celinayo dacwadaha bilaabmaya caseska markay yimaadaan looyaradu maxkamadaha aadayaan maxkamadaha ayaa hadhow dowladda Netherland faralka ay ku kacayso iyaga ayaa controlkiis kale marka hadda ka hor markii dowladda waa waqtigii hore ay ahayd 2010 waqtiyadaas dowladda ay inkirtay maxkamaduhu baa dalbaday marka dadkan waxaad ku celinaysaan marka heshiiskii isaga ahaa darigaas waxa qasab noqotay in maxkamadihii ay marka su'aalo ay weydiiyeen dartood inay dowladdu ay marka qiraarto in wax ka jiraan marka tii oo kale la yaab maayo maanta tii oo kale in wasaarad ay la gasho oo dowladda ay la gasho
maadaama maaragtay dowladda Netherland ay had iyo jeer ma ay ku xirayso macnaheedu taageeradeeda iyada laftigeeda danaha ay leedahay mar haddii sidaas tahay oo wixii ay qarsoodo yihiin oo muqdishona weli ammaankeeda aanu adkeen oo dowladdii iyadiiba ammaankeeda gacanta lagu hayo ilaalinayo Netherland ay doonayso in sidaasi ay dadka dhumaleysiga marba ay qof u qabato waxaa kaloo jirta arrin ah dad badan ayaa banaanka yaala muddo 2 sano ka badan oo aan wax daryeel haysan wadankiina aan la geyn halkan aan wax ku haysan sharciga midowga Yurub muxuu ka qabaa horta sharciga midowga Yurub oo arrintan quseeya waxa waaye waa sharciga la yahay FRM oo qodobka 3 marka qodobka 3 wuxuu leeyahay qof mataqaanay qaxooti ah oo wadankiisa iska soo dhiibay lama celin karo haddii dhibaato weyn oo bani'aadanimo xumaa u la kulmayo marka maadaama wadankii nabadgelyadiisii macnaheedu aan ahayn nabadgelyo maanta sugan oo sida aan u jeedno qarxin badan ay ka dhacayaan maadaama aan aragno in hay'adihii caalamiga ahaa oo 20 sano joogay qaarkood sida mataqaanaa dhakhtarada bilaa xuduuda oo kale ay ka baxeen waddankaas ka baxeen hay'adihii kale oo Amnesty International ay leeyihiin qof isagoo aan dalban loo celinina ay leeyihiin ay digayaan marka waxa garanaysaa marka xadgudub meeshaas in xuquuqdii qofka mataqaanaa qodobkaas oo kaleeto in lagu xadgudbayo haddii marka dowladdii wadanka oo dadka muwaadiniinta lagu celinayo ay iyadu la shaqeyn muujinayso taas sharciga Yurub ma gaari karo meeshaas laakiin waa inay iyaga dhexdooda wadanka gudihiisa laftigiisa control ka jira mechanism oo la isku control hadii dowladda macnaheedu wasaaradda ay arrintan gashay oo ay arrintan ogolaatay waa in baarlamaanka oo kale markaan uu su'aalo uu ka keenayo wadanka gudihiisa waa in arrintaas laga saxaa halkaas laga bilaabo abaabul وين هالكاس لقى بلعبها معناه وهي شرع يوروب محكمة يوروب وحنا حلوا دعوان كرا كذا دولتها يوروبيان كوميونيتي ليركا يوروبيان يونيون يلا قد دعوان كرا محكمة داصر إيه قصص أو حق ليان لكن وضع كذا سوماليا وحنا الجمال أوتوريتي سوماليا وحنا قشوا وين برلمان كي محكمة دي حاجة مركز نتاس وطاي موسى وانكوس الله بنيا علي ونقلسي دبعت حق الشرعية الصومالية هايستا dad badan oo Soomaaliyeed ayaa muddo dhowr sano ah banaanka iyaala oo aan wax daryeel haysan dadkaas marka banaanka la dhigo dhibaatooyinka u badan ee la kulmaan maxay tahay maadaama ay tahay ururkiina uu ka shaqeeyo arrimaha wax u qabashada dadkaasi dhibaataysan maxamed waa mahadsan tahay horta runtii waxa wax aad iyo aad looga xumaada ah in dad Soomaali ah ay wadankoodii ka soo qaxay dhibaato darteed halkan yimid maangaliyo weydiistay oo macnaha dawlad horumarsan oo dimuqraadi u yimid oo nidaamkii dawladnimada uu shaqeynayo in maanta codsigooda qaxootinimo la diiday isla markaana banaanka dadkii la soo dhigo iyagoo markaa ay keentay in noloshii bilowga ahayd oo ay noqon lahayd hadday noqoto meel ay jiiftaan hadday noqoto cuntadii iyo hadday noqoto maaragtay ii sheeg daawadii intaba aan haysan oo aad ogtahay Yurub mararka qaarkood nolosha in dibadda lagu noolaadaa si u adag tahay banaanka dabaysha iyo qabowga iyo cid macnaha cid kala daryeelaysa inaysan jirin laakiin maxamed waxa muhiim ah in la fahmo sideedaba qaxootinimada ama magangeliyo doonku markaad fiiriso wadamada Yurub iyo Ameerika guud ahaan adduunyada waa sheeka muddo dheer jirtay ma aha wax hadda bilowday intii dawlad jirtay oo dawladdaas dadkeeda cadaadinayso laga qaxayo ama intii ay jireen daruufo keeni karo qof wadankiisa inuu ka cararo ha noqdaan dagaalo ha noqdaan mushkilada kale oo maaragtay dabiici ah mar walba qaxootinimo way jirtay dadkuna ay soo qaxayeen oo ilaanayeen halkan marka haddaan u soo degno wadanka Holland oo kale tusaale ahaan markaad fiiriso taariikhdiisa runtii wuxuu ahaa wadan markaad fiiriso wadamada Yurub يعني dadka qaxootiga ee soo gaara si fiican u daryeela oo maaragtay ii sheeg haday noqon lahayd nolosha asaasiga ah iyo nolosha kale intaba laakiin waxaan dareemaynay in sanadihii u dambeeyay ay siyaasadda Holland ee ku wajahan arrimaha qaxootiga dadka magangelin doolka ah
inay si aad iyo aad isku bedesho noqoto siyaasad aad u adag oo dhib badan marka dhibaatooyinka dadka marka banaanka la soo dhigo ay la kulmaan maxaa ka mid marka waa usoo noqon doona marka taa waxa keenaya marka in guud ahaan aad dareemayso dowladihii Yurub laftigoodii berigii hore wadamadii Yurub bilowgii waxaan 6 wadan laakiin maanta waxay marayaan 28 wadan Yurub inay isku soo darsoontay oo dowladihii yani maaragtay dhaqaale ahaan liitay inay ku soo biiraan dowladihii hore u maray oo dowladihii hore u maray oo Yurub ay ka mid tahay isheeg ama Holland oo kale ama ay ka mid tahay Jarmalka oo kale ay lacagtii ay si kaleeto ay u bixin lahaayeen oo xataa dadka dhibaataysan ay ku caawin lahaayeen aad moodo inay ku caawinayaan dowladihii gadaalka ka soo biiray fahamtu waa marka xagga dhaqaalaha laga fiiriyo arrimaha keenaya waxaan rabaa in la fahmo sababta keenaysa dadkan qaxootiga sidaan loola dhaqmo macnaha arrin iska timid ma laakiin waa arrin xoogaa historic macnaha taariikhan dib loo fiiriyo marka dhinacaas culaysku ka saaran yahay dowladda dhaqaale way oo dadkii Hollandeeska laftigoodii yani waxay dareemayaan wixii laga qaaday ama waxay bixinayeen inba intii lagu caawin lahaa dadka u baahnaa in dowladihii Yurub oo ku soo biiray Yurub lagu caawinayo waxa kaloo yimid in ay isbedesho siyaasadii guud ahaan Yurub oo ay soo baxeen xisbiyo siyaasadeed oo aad xagga midigta u jiro mararka qaarkood la dhihi kara waa xisbiyo cunsuriyiin xagga siyaasadda oo nacab dadka ajnabiga ah dadka soo galootiga dadka qaxootiga dadka muslimka xisbiyadaasi marka waxay keenayaan in ayaga laftigoodii public opinion ama ra'yi caamkii dadkii inay saameyn ku yeeshaan iyagoo ka faa'iideysanaya wadamada faqriga ku soo biiray dhaqaale darrada dhacday dhaqaalihii xumaaday inay dadkii ka dhaadhiciyaan in dadkan qaxootiga ah ama dadkan immigrantga ah ee soo galootiga inay waxoodii qaateen taa waxay keenaysaa marka inuu yimaado nacayb ah in la naco dadkii qaxootiga ahaa dadkii soo galootiga ahaa iyo sida la socotaba waayahan ilaahay qarxii uu ka dhacay Mareykan kadib xataa dadka muslimka dadkaas oo dhanba in si gooniyo focuska loo saaro way fahamtaan u maleeyna mugtahay macnaha marka xisbiyadaas iyaga ah waqtiyada doorashada waxay keenayaan hadii jeer siyaasad ay leeyihiin waa inaad annagana doorataan sababtoo ah waxaan ku dadaalaynaa inaan qaxootiga yareyno in macnaha maaragtay isha dadka soo galootiga aan yareyno in nolosha maaragtay lagu adkeeyo waxay keenayaan barnaamij aad u adag oo dadka saameyn ku yeelanaya taa waxay keenaysaa marka in siyaasadii ilaa wadamada waa wadamo dimuqraadi ah dadku ay doortaan baarlamaankooda taa waxay keenaysaa in dadka siyaasadii ka soo qayb galaan xisbiyadii cunsuriyiinta ahaa oo iyaga laftooda xagga aad u durugsan in siyaasadii ka soo qayb galaan oo sharcigii iyo nidaamkii saameynaya dadka qaxootiga laftigooda sameyntiisii inay contribution ka geystaan macnaha maaragtay iyaga laftooda wax ku darsadaan haddii ayna soo galin dowladdii ay baarlamaankii soo galaan waxay keenaysaa xataa xisbiyadii siyaasadeed ee traditionalka ahaa xisbiyada shaqaalaha xisbiyada oo macnaha xagga maaragtay diimaha xisbiyada kaleeto iska conservative-ka laakiin aan cunsuriyadda laftigoodii waxay ku yeelanayaan saameyn iyagoo ka cabsi qaba xisbiyadan faraha badan oo yaryar oo nacab dadka muslimka ah dadka soo galootiga dadka qaxootiga in nidaamkii siyaasadii ama sharciyada ay sameynayaan inay adkaato mid inay noqoto mid adag laakiin waxaa jirta Soomaaliya siyaasad guud oo midowga Yurub ay kula dhaqmaan qaxootiga wadamada soo galaan marka macnaha dawladda Holland iyo dadka Soomaalida hadda waxa kala haysto qaxootiga ah taa waxay keenaysaa marka in sanadii u dambeeyay dawladda Holland xisbiyada wadanka ka talinay inay ahaayeen ay ku jireen xisbiyadii hadda aan sheegay qaar ka mid ah inay iyagu ay ka mid ahaayeen taasoo keentay in la sameeyo siyaasad aad iyo aad u adag oo dadka qaxootiga ah yani maaragtay lagu adkeynayo nolosha tusaale ahaan sida hadda abukaata uu sheegay oo kale berigii hore ma jiri jirin qofka in la yiraahdo sharci wadanka kuma lihid waa in jidka ku noolaata waxa jiri jirta qofka xataa soo sharci lahayn fiir qofka in sharci la siiyo deganaasho iyo nolosha labay kala yihiin macnaha in la qofka sharci ma lihid laakiin bini'aadanimo isaga noolaa oo qofkii marka la siiyo hoygii iyo cunto ama la daaweeyo siyaasaddan marka hadda aan ka hadalnay waxay keentay in la yiraahdo qofka hadii uusan sharci lahayn in laga joojiyo waxyaabihii kale oo tasiilaadka ahaa oo qofkii uu jidka yimaado marka taasina waa mid aad iyo aad u dhib badan waa mid dad aragteen oo dad Soomaali u badan oo aad u fara badan oo Soomaaliya iyo dad kale oo qaxootiga marka banaanka in la soo dhigo dadkii marka maxay sameynayaan markii banaanka yimaadaan marka iyaguna waa in ay muujiyaan in macnaha arrintan iyagoo kaashanaya ama ururada ama dadka kaleeto dad wanaagsanaa jiro dadka xagga bidixda u janjeera maxay marka la kulmaan dhibaatooyin noocee ah waxaan rabaa inaan ogaano dadkaasi ku dhaca marka banaanka la soo dhigo la caawiyo dhibaatooyinka dadkaasi ay la kulmaan maxmed adiguba waa dareemi kartaa qof wadada la soo dhigo oo aan haysan meel uu jiifto oo aan haysan meel uu wax ka cuno oo haddii qofkaasi uu xanuunsado xataa dhakhtar daaweynaya uusan jirin marka maadaama tasiiraadkaas oo dhan meesha ay ka baxeen marka annagu Soomaali ahaan ama ururada Soomaalida ah maxaan qaban karnaa
waxaan qaban karnaa annaga marka maxamed waxay noqonaysaa kow in dadkaas aan isku dayno ama ha noqoto individual inaad uga caawiso ama si guud oo mujtamaca soomaalida ama si ururo ah dadka in laga caawiyo noloshaas iyada oo bilowga oo dadka haddii la sii karo tusaale ahaan oo kale ama lacag loo aruuri karo ama cuntadiioo kale ama xataa dhaqaatiir waxaa jira dadka sharciyada aan lahayn oo dhibaataysan daaweeye kuwa laftigooda lagu xiri karo yacni waxyaabaha qaarkood oo noocaas oo noloshii bilowgeeda u baahan yihiin in la isku dayo in laga caawiyo taasi laftigeeduna mudday socon kartaa waa mid tan kale waxaa la samayn karaa oo ururadu marar badan ay sameeyaan in dad fara badan oo mararka qaarkood aad arkayso markii mangalyada ay weydiisteen oo broseska sharciga ay galeen in looyaro fiican aysan helin oo sharciyadoodii macnaha broseskoodii wax un laga qaldo dadka markay noo yimaadaan malafyadooda dib loo fiiriyaa mararka qaarkood second opinion waxaa la weydiiyaa abukaatayaal kale oo qaarkood ay yihiin dad dadaalaya in malafyadooda dib loogu geeyo way dhacday dad soomaali ah oo aan jidka jiifay oo intan annaga noo yimid aan malafyadooda dib u furnay abukaatayaal aan u geynay dacwadooda dib loo furay oo xataa looyaradii dacwada ka qalday xataa lasoo dacway oo dadkii sharci la siiway jiraan taasina waa wixii aad ka qaban karta dhinaca dacwadooda waxaa kaloo la samayn karaa waxay tahay in ay sameeyaan loobi wax la yidhaah maadaama wadankan dadka soomaalida ah oo degan laftigoodu ay qaarkood xisbiya siyaasadeed ka tirsan yihiin wax ay dooran karaan laftigeeda in xisbiyada siyaasadda laftigooda loobi laga sameeyo iyadoo la kaashanayo dadka wanaagsan abukaatayaashii macnaha in la yidhaahoo kale in la isku dayo siyaasadii adkeyd ee ka jirta xagga baarlamaanka oo dadka qaxootiga ah ama soo galootiga ama dadka muslimka lagu dhibaayo laftigooda in la iskaashado anagoo kaashanayn ummadaha kale in loobi siyaasadeed la sameeyo si nidaamkaas baarlamaanku ay sameynayaan wax looga bedelo waayo dadka dooranaya waa annaga marka in macnaha taasna in loobigaas la sameeyo si siyaasad khafiifa oo dadka aan u darnayn loo sameeyo marka waxyaabaha ay ururadu qaban karaan waa wax noocaas waa tahay marka waxaa jirta waxaan la kulmay maalin dhaweyd qaar ka mid a dadka soomaalida ah ee banaanka la dhigay dhibaataysan qaarkood waxay ku eedanayaan ururada soomaalida ee waddanka ka dhisan waa sida ayaga ay leeyihiin weli diyaar ma aha si daacad ah in ay u istaagaan in ay wax noo qabtaan arrintaas maxaa ka leedahay horta runtii waa dareemi karnaa qof soomaali ah waddankiisa dhibaato ay ka keentay yani perspectivekii iyo macnaha rajadii uu raadinayay ay noqotay maanta inuu jidkaas ku noolaado horta runtii waa arrin aada u dhib badan marka wax kastoo dadkaas ay sheegaan runtii waa in la tixgeliyaa arrinta ay sheegaan laakiin mararka qaarkood waxa in la fahmo u baahan kaalinta ama yani maaragta ay ururadu geli karaan awoodoodu inta ay dhan tahay wax ay qaban karaan runtii anigu waxaan aaminsanahay in ururada soomaalidu runtii ama ha noqoto si toosa ama ha noqoto si dadban inay dadaalaan wixii karaankood ah oo ay qaban karaan laakiin wax kastoo qabanayso ama wax kastoo ururadu qabanayaan marmar waxaa imaanaysa mushkilad kale oo arrintii carqalad kugu noqonayso kale tusaale ahaan markii la arkay in dad fara badan ama ururo ha noqdaan ama individual ha noqdaan oo dadkii caawinaya oo iyagu ama guryahoodii geynaya ku haynaya ama si kaleeto u caawinaya dadkii dowladda ahaa oo nidaamkaas sameynaya laftigoodii way ka fikirayaan oo waxay keeneen inay yidhaahiin hadda waxaan samaynaynaa sharci la yidhaahdo in qofka mar haddii waddankan uusan ku joogin si sharci ah nidaam haddiiba la qabtaba in qofkaasi uu gelayo dembi oo la xirayo taasoo ah macnaha qofkii laftigiisa oo mararka qaarkood in xataa qofkii qof sharci darro waddanka ku jooga caawiyaan laftigiisana inuu asna dhibaato imaanayso taa macnaheedu waxay tahay dowladdii waxay leedahay annaga dowladaan nahay dadkan annagayna doorteen annagaa magacooda ku hadlayno marka ama ha noqdaan ururada bulshada ama ha noqdaan masaajidada ama ha noqdaan kaniisadaha ama dadka kaleeto oo civil society-ga ah oo dowladda aan ka tirsanayn laakiin sida wanaagsan u fikiray wixii ay qabanayeen dadka qaxootiga ah oo magaladoonka dhibaatasi ku caawinayeen waxaad u malaysaa dowladdii laftigeedii inay kasii hordegaysay leedahay haddii la caawiyo dad noocaasa oo waddanka sharci darro ku joogo ama in leekhaal ah qofkii caawiya hay-addii caawisa laftigeedii iyo qofkii laftigiisii waxaa la keenaya qaanuun lagu ciqaabayo arrintaasoo laysku dayay in laga dhigo nidaam ama sharci waddankaana sharci markii la sameynayo waa in la geeyaa baarlamaanka kan koowaad kan labaad marka broseskaasay keeneen hadda weli ma hirgelin laakiin waxaad u malaysaa in ay arrintaa ku socoto marka runtii arrintu waxay u baahan tahay in la fahmo siday u adag tahay iyo ma aragtay mararka qaarkood carqaladaha laftigooda ururada ka hor imaan kara marar badan oo waxaa jirtay dadka soomaalida ah lagu xujeyn jiro oo la dhihi jiray
waxaan shaki ka qabnaa tusaalaan ka wadaa mogtahay soomaalinimadiina wadankiina waa ognaa dowlad kama jirto qofka uma suurto gelayso markuu soo qaxayo inuu wax warqadaha soo qaato oo soomaalinimadiisa caddaynaya waxaan ognahay wadanka kama jirto safaarad ma joogto halkan caddayn karto qofku inuu soomaaliya dhibaatadaas markay nagu badatay waxaan sameynay rag abukaatayaal ah oo sharciga si fiican u yaqaan in lala tashto la weydiiyo arrintan maxaa lagu xallin karaa waxaan suurto gelinay in la sameeyo in la hirgeliyo nidaamtaa looga hortagayo oo qofka la yidhaha okay in la raadiyo dad markhaatiyaal ah oo qofkan soomaaliga ah oo iyagu sharci ay siiyeen oo soomaalinimadiisii aysan shaki ka qabin 2 qof ilaa 3 qof oo markhaati ah oo qofkan garanaya oo sharciga wadanka degan in la keeno oo kadibna jaaliyadaha iyo dadka markhaatiga ee qofkii markaa warqad la wada qoro oo dadka nidaam noocaasaan keenay oo muddo shaqeeyo dad fara badan oo Soomaali ah sharci lagu sii fiiri tii markii hagaagtay iyagu mar walba ay fikirayaan waxay yiraahdeen markii dambe okay dadka warqadda soo qoraya waa Soomaali ururka soo qoraya cidda markhaatiga kacaysana waa Soomaali kan loo qorayana waa Soomaali marka objective yani wax oo lama dhihi karo madax banaan fiiri marka arrintii maxkamadii markii loo geeyay laftigeedii waxay u muuqatay arrin macquul ah way waxay ogaanaysan dad iswada leh marka waxaad keenaysan ma aha wax objective oo la dhihi karo way madax banaan marka runtii laakiin waxa caddayn kara inaad tahay Soomaali oo qof kale Soomaali Soomaa sida oo sidiisaba qofka caddaynta waxay ku imaan kartaa in aniga ku aqaan aan ku dhaho qofkan waa cali waa garanaya waa runta laakiin qofka ajaanib waxba kama sheegi karo laakiin adiga laftigaadu markaad aniga caddaynayso fiir adiga laftigaadu waa in Soomaalinimadaadii hore shaki aysan ka jirin ko marka kale markaad caddaynayso sideed ugu taqaanay xageed ugu taqaanay wax iskool baan dhiga jirnay ma darisaan ahayn yani wax aniga iyo adiga aqoonteena isku keeni kara waa inay jiri karaan hal qofna ma waa in la helaa dhowr qof marka waxaan ka wadaa wax kasta oo xal ah oo mujtamaca Soomaalida ama ururada isku dayaan iyagoo kaashanaya dadka wanaagsan waxaad u maleynaysaa in waxa dareemaysaa markiiba dawladdiin ay wax ka baranayso marka runtii dadaaladu way badan yihiin laakiin caqabado fara badan ayaa jiri kara waa tahay Muuse aan kugu soo laabto mar haddii aad sheegtay inay jirto dhibaato xagga sharciga ah oo madalana hadda siyaasadeeda ay si adkaanayso ayna heshay fiilo yar oo dadkii ay ku bilowday inay dib u celiso muqdishona weli aysan ammaan ahayn oo hay'adihiiba ay ka daranayaan asaas muxuu yahay halka marka ilaa hadda dad badan ayaa miiska saaran oo ka cabsi qaba in dib loo celiyo lagu celiyo magaalo aan nabad ahayn si loo hortay kara xagga sharciga horta intaanan su'aashaas ka jawaabin waxaan jeclaan lahaa inaan su'aashii hore oo ahayd dhibaatada dadka maxay tahay dhibaatooyinka marka qofka banaanka la dhigo keena cali wuu sheegay dhibaatooyin badan buu sheegay waxa ku daraysaa soo ku daraya aan ku daraya dhinaca sharciga dadka badana qofkii markuu cunto waayo oo banaanka iska wareego waxa dhici karta in la qabto markii la qabto inuu dambi lagu qabto bas qofkii cunto la'aan baa haysa waxba xaday ka soo qaad dambiga yarka ama baasaboor wuxuu raadsaday falsa uu baxay oo wuxuu rabay waddanka iskaga tago waa la qabtay waa dambi moogtay dambigaas la qabtay ayaa dhibaatooyin badan u keenaya dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah in hadhowto hadiiba bani aadamnimo xitaa la sirado wax loogu raadiyo ya in uu dambi leeyahay oo rekoord dambi ah inuu leeyahay waxaa dhici karta in aakhirka markuu dhowr dambi oo saasoo kala galo in la yiraahdo mataqaanaaye marka dambe waddankaba lagama rabo wax la yiraahdo onhovenst waxaa jira dad Soomaaliya oo fara badan hadda oo sidaas markay indha ka qaadaan laba indhood markay ka qaadaan waa la xiraaba jeelba ka baxaan marka waa arrimo macnaheedu xitaa dowladda Netherlands dhibaato ku haya oo qof mar walba jeelkii ugu jira oo kharaj lagu bixinayo wax rajaan aan lahayn dadkaasna intooda badan waa dadka Dublin nidaamka Dublinka waxaad ka wadaa dadka farahoodii wadamo kale laga soo helay qofka haddii wadan farihiisa laga soo helo dowladda uu markaa u yimaado hadduu fara leeyahay mana gelayso dacwadiisa yani dhibaatadii wadanka kaga dhacday ama qaxootinimada ahayd maba la fiirinayo waxa la leeyahay wadankaas ayay ahayd inay fiiriyaan marka qofkii waxa weeyaan si kastuu isu dhiibo 10 jeer dambe hadduu is dhiibo xitaa hadduu wadanka ka tago wadanka iska dhiibo sidii uu baahanaya marka dad fara badan oo Soomaali oo wareega oo mar walba wadan taga
baa jira waddankaas waxay iska dhiiba dadkaas noloshoodu aada iyo aada iyo aada bay u liidataa waa arrintan marka hadda discussionka laga sameeyey markii doonyaha dhibaatada doonyada markay musiibadii doonta doonyaha dadkii dad badan Soomaaliya ku jiray dadkaas Allah u naxariisto dadkoodina Ilaahay samir ka siiyo laakiin waa arrin xitaa baraarujisay hadda Europe Talyaaniga dadka faroon bay ka soo qaadi jireen oo iska soo diri jireen hadda laakiin waxay leeyihiin sidan ma dhici karto marka arrintaas dhibaatada ku timaado ayaa wax ku daraya Dr. Cali arrintii waa gartay tiikan ku diyahayd maxaa laga qaban karaa oo lagu hortagi karaa in dad badani waxaan ku dhibaataysan lagu celiyo waddanka Soomaaliya oo wali xaalkiisa uu safadhin maxaa laga hortagi karaa waxaa laga hortagi karaa horta sidaba Netherlands arrintan waxa ka imaanaya dacwado baa ka imaanaya sababtoo ah qofkii marka la hal celiyo oo celin loo keeno waa in marka la siiyaa xamaayad oo xagga sharciga waa la siiyaa bari loo in helaan looyaraasi waa in mar labaad maxkamadaha dib loogu noqdo arrintaas marka maxkamadaha inay dib u eegaan bolisigan cusub ee dawladdu ay hadda soo saartay waa in maxkamadaha dib u eegaan marka procedures badan ayaa ka imaanaya procedures markay ka imaadaan waxa dhici karta marka in dib haddana ay u furanto abiilkii ma garanaysaa maxkamadda sare ama maxkamadda Europe mar labaad in ma garanaysaa si fiican maartay case-ka hore inaanu case si fiican u adag ahayn laakiin in si fiican marka inta la isu kaashado marka dhinaca qaanuunka dhinaca waddanka Europe marka saas wax looga qaban karaa waddanka Soomaaliyana la shaqeynta dawladda Soomaaliya la shaqeynayso iyagana waa in wax laga qabtaa oo dadka Soomaalida ay cadaadis saaraan inay waddankoodii iyo hay'adahoodii ana maqlaysay Muuse dhinaca sharciga ayuu ka taabtay waxa laga qaban karo si loo hor istaago dadkan dib loo celinayo hadda dawladdu ay bilowday maxaa ku darleed horta waxa muhiim ah in la fahmo dadkan maadaama ay nidaam iyo sharci ay wax ku sameeyaan hadi jeer in la isku dayo in nidaam wax lagu bedelo taasoo ka bilaabanaysa tusaale ahaan waddankooda wuxuu leeyahay baarlamaankaasna wuxuu kontroolaa dawladdiisa iyo siyaasadeeda marka in baarlamaanka xisbiyada kala duwan oo ku jira in cadaadis la saara ah yani dadka qaxootiga ah sida ay ula dhaqmayaan dawladda Holland inay tahay si aan fiicnayn oo bini'aadanimada ka soo horjeeda sababtoo ah dadkan dhibaatadii wadamada qaarkood ka keentay wali way taagan tahay taana waxa uga sii daranba inay wadada ku nool yihiin taana ay suurtagal ahayn marka in yani maaragtay pressure noocaas lagu saaro oo laga dhaadhiciyo xisbiyada siyaasadeed iyadoo la kaashanayo ururada bulshada iyadoo la kaashanayo civil society-ga iyo dadka kale had iyo jeer wanaagsan in macnaha dawladooda laga dhaadhiciyo in dadkan qaxootiga qaabka ula dhaqmayaan qaabka duwan inay keenaan oo xataa hadayna suurtagal ahayn in waqtiga xaadirka sharci siiyaan oo kale in dadkan ay siiyaan facility oo ah inay geeyaan dadkan meel ay ku noolaadaan noloshii bilowga ahayd oo in xero la geeyo dadkan ay helaan jiif inay nastaan inay cunto helaan inay dhar helaan inay daawo helaan taas in laga daalin barasharka noocaas inkastoo dawladda maanta waddanka Holland ka jirta ay tahay runtii dawlad ay ku maaragtay ay ku jiraan qolooyin conservative ah runtii oo wasiirka u qaabilsan macnaha arrimaha qaxootiga kale u yahay xisbigaas FFD liiraha oo maaragtay isha conservative-ka oo ka soo jeeda arrimaha ku adag haddana in laga daalin barasharka noocaas mar walba in lagu wado taas waa midda koowaad midda labaadna waa in iyadana xagga sharciga la fiiriyo ah maadaama maxkamaddii ugu sarreysay Yurub oo dhan hadda ay keentay dhawaaq ah in xaaladda Soomaaliya Muqdisho ay sii hagaagayso taasoo loo fasiray waddanka dad lagu celi karo tan keentay in dawladda Holland ay ku dhiirato inay dad waddanka dib ugu celiso taasna in iyadana maaragtay xoog la saaro iyadoo la kaashanayo dad abukaatayaal ah oo macnaha qaanuunka si fiican u yaqaan iyagana in la kaashado in maxkamaddii Yurub iyadoo halkan sii maray laga dhaadhiciyo la fahamsiyo Soomaaliya xaaladeedii inay wali sidii loogu talagalay inaysan u hagaagsaneyn oo wali macnaha ina suurtagal ahayn dad qaxooti ah oo dhibaato waddanka uga soo caray dhibaato haysato haddana si xooga inta la xirxiro oo in raali keena waddanka lagu celiyo taana in suurtagal ahayn iyadoo in laga dhaadhiciyo maxkamadda Yurub tan kalena
in dowladda Soomaaliya laftigeeda anaga wadankeena waa jecelnahay inuu hagaago dhamaanteen mid sharci leh iyo mid aan sharci lahayn inuu ku laabto aad aan u jecelnahay laakiin haddana xaqiiqada maanta jirta waxay tahay waxaan ognaa wadankeena dhibaatada ka jirta yani maaragtay wadankii weli inuu maaragtay uusan wada nabadgelyo ahayn in maaragtay fakhrnima ka jirta shaqalaana ka jirta weli waxaan arkaynaa in dhalinyaradii wadankii joogay inay badaha isku soo maaragtay ay soo galayaan oo hadda tii u dambeysay 2 usbuuc ka hor ka dhacday wadanka Talyaaniga aan arkayna dadkii doonta dhibaatada faraha badan ay ku soo gaartay Allah u naxariisto dadkaas dadkay ka dhinteen naxariisi jannada ka waraabiyo dhamaan dadka Soomaalida inay Soomaali u badnaayeen marka maadaama meeshii perspective uusan jirin macnaha uusan muuqanayn dowladda Soomaaliya laftigeedu inay fahamto taasoo loo baahan yahay okay dhinacna warda dalkeena waa jecelnahay dadkeena waa rabnaa laakiin arinta xoogga ah oo khasabka ah oo dadka diyaaradda la soo saarayo ma garan karno qofka sababta meeshii ka keentay meesh ma gurigiisa la haystaa ma magaaladii uu ka yimid weli laga haystaa ma asaga dhibaato familigiisa soo gaartay ma asaga loo geystay ma in laftigeeda in dowladda Soomaalidu ay fahamto waa dareemi karnaa dowladda laftigeedu waxay rabtaa aqoonsi waxay rabtaa dowladaha Yurub inay la shaqeyso kaalmay ka rabtaa ma laakiin inay ka dhaadhiciso in arinta khasabka ah inayna suurtagal ahayn qofkii wadankiisa isaga soo noqonaya welcome si volunteer laakiin inaan cidna la soo qasbin inayna suurtagal ahayn in dowladaha Yurub inay taa fahamsiisaan loo baahan yahay dowladda laftigeeda waa tahay Muuse Ali wuxuu ka dhawaajiyay in dowladdu ay fahanto in weli dalka aanu deganeen oo aanu diyaar u ahayn inuu qaabilo qaxooti dibadda ka yimaada waxaana muuqanaysa oo jirta in waxa socdaalka wadankana ay goos ka haysato dhinaca Soomaaliya oo madax ka mid ah inkastoo weli nooceeda aan sheegin ay si hoose u ogolaadeen in dadka lagu soo celiyo dowladda marka waxaa tahay nin sharci yaqaan ah sidee looga dhaadhicin karaa madaxda dowladda in waxyaabahan ay wadaan iyo isdalmarkani gacan bidixintani ay joojiyaan runtii dee arrintaas horta dee ilaa hadda waxaanu ku maqlaynaa oo suuq uma ka maqlaynaa marka horta in la cadeeyo dowladda laftigeeda moogta waa inaan fursad siinaa arrintan kaga jawaabto oo waxay inay ama way jiraan ama marka horta wariyaasha iyo dadka media waxaan dadka codsan lahayn inay arrintaas ay marku soo qaadaan oo madaxda horta Soomaalida laakiin wasiirka socdaalka hadal uu ka jawaabay baarlamaanka su'aalo la weydiiyay wadankan Holland waxyaabaha uu kaga jawaabay waxa kamid ahayd in uu haysto isfaham oo ka haysto dhinaca waxa socdaalka ee Muqdisho sidaana ay ku dhiiradeen in ay tijaabo ahaan u bilaabaan dadkiina celiyaan marka hadalkaasi maxaa kaga soo baxay marka warkii hal dhinac aan ka haynaa markaas waxa weeye dhinacii kale laftiisii waa aamusan soo ma waa sax waa aamusan yahay laakiin in isaga laftiisa la weydiiyo waaye waxaan ma dhihi karno meeshaasi ku galeen heshiiskaasay galeen ma dhihi karno laakiin waa tuhunka iyo warka ayaa u badan dowladdan sida ay muujisay dowladda horena oo baarlamaanka su'aalaha ka jawaabeen saasay u dhacaysaa in la horta la hubiyo muhiim weeye okay haddaan ka soo qaadno inay jirto xitaa oo hadda ay jirto dhibaatada ugu weyn oo dadka Soomaalida hadda haysta dadka gudaha qaxootiga ku ah waa dhibaato ku ah Soomaalida dowladda Soomaalida horta xeryahan waa weyn ee dadka joogaan horta taas kuwa waxa marka hore la xaliyo marka kuwaas la xaliyo hadda waxa misalay dhibaato ku filan dowladda Soomaaliya haysato iyada oo marka la fiiriyo qaxootiga gudaha jooga taas muhiimadeeda in la fiiriyo way hay'adaha caalamiga waxay leeyihiin dowladda Soomaaliya dad kale oo lagu soo celiyo ma qaadi karto dadkan wadamadan loo soo qaxay ee heshiiska qaxootinimada saxiixay ee dhinaca ka ah bini'aadanimada ma garanaysaa bini'aadanimo ahaan aaminsan inay waxaan u sameynayaan inay maanta xaaladda Soomaaliya oo xaaladda wasaata inay u qaxooti ku celiyaan ma laakiin dowladda Soomaaliya waa in taas iyadu ay la timaado tirada dhageysta ya wax kasta oo ka wada shaqeyn karnaa Soomaalida inaad nala horumarisaan oo nala dhistaan waan rabnaa laakiin qaxooti la soo qasbay yani la soo qasbay marka leeyahay waxa weeye
waxaa jira dad iyagu halkanba noloshoodii nacay oo diyaar buu inay laabtaan way jiraan way jiraan way jiraan waxa weeyaan nolosha aan ka sheekeynayne dhibaatada badan ee cudurka iyo dawa-aanta ee qofka banaanka yaal baa dad waxay isiraadeen dadkoodina waxay aaminsan yihiin inay yurub u jiraan mugtahay oo waxa laga yaabaa dadka qaarkood maxay wax soo diri laayeen baa laleeyahay ma fahantaad Soomaaliya wadaadka Soomaaliya waxay ku tirsan tahay waxay ku tirsan tahay maanta dadka waxa shilinka banaanka laga diray Soomaaliya maadaama shilinka banaanka laga diray ku tirsanahay dadkaas laftigooda dad baa wax ka rajeenay fahantaad laakiin iyaga dhibaato xun oo maskaxiyana oo mataqaanaa caafimaad ay galeen dadkaas marka qaarkood baa leh hanna la celiyo yaa wadan noo bixin kara fahantaad laakiin qofka isagaan diyaar ahayn haye علي وحنا ku daray علي هاي ما ku darleed arinta abkaata muuse uu sheegay waxaan ku dari lahaa in waxa muhiim ah in haddii ay jirto waxa la leeyahay okay dowladda Soomaaliya ayaa waxa dhici karta in ay heshiis hoose la galeen dowladda macnaheedu laakiin abkaata uu sheegay wax cad lama hayo haddii ay jirtaba fiiri Soomaaliya maanta يعني دولة حوجم بيسنجرنا يعني ودك أسكبر برسناد لكن هدنا هدان فيرنا وحجرة الدولة وحجرة البرلمان وحجرة محكمة ده معناها institution دي معناها كلام بجاكم بالانس وحي ويجرا مركا هدي حتى درينا عاس وجري كرو في الدولة دي أيات دولة هنا وحي لقى شيء إلى دولة دوا بلارن تاي وقت ماشي وحلا بس حي كرا وحي نقنيسا إلى برلمان كشقيس أيا وحي تاي إن الدولة دي كنترول وحي قبضتي هدي عبش إجرته marka baarlamaankii in cabasho loo gudbiyo marka baarlamaanka laftiisu gudiyo kala duwan oo leeyahay gudi walba laga yaabo in shaqo gooniyo leeyihiin marka gudigii hawshaas lahaa in baarlamaankii ka tirsanaa inuu u wacdo dawladii la shaqadiisii waa inuu ku kontrola dawladda shaqadeedii su'aalo ka weydii kara dabadeetna halkaas laga ogaan karaa wixii inay yihiin wax jira iyo wax jira inay sanaxeen okay muuse shaqadu waxay marsan in baarlamaanka in laga fiiriyo Soomaaliya dhinacaas laga soo galo si wax loo saxo waxaan ognahay baarlamaanka xamra fadhiya hawshiisa ahayd in dawladdu ay xakameeyaan oo ila soo dhaqaaqeeda inaysan wax badan kala socon heshiisyada dawladdu ay mararka qaar samayso marka waxaasi wax looga qaban karaa oo baarlamaanka guddigiisa iyo arrimaha qaabilsana lagu sheegi karaa in dawladdu waxana ay ka qabtaan qaladka waana hadda ka hor xitaa waa la isku dayay arrintaas baarlamaanka laftiisa in la gaarsiiyo waxaa jira moogtay dad oo baarlamaanka dad badan oo baarlamaanka ka tirsan oo diaspora ah marka dadka diasporada xitaa maray qaarkood booqasho ku yimaadeen waa laga soo qaaday arrinta waxay ballan qaadeen inay baarlamaanka dhexdiisa ay arrinta ka soo qaadi doonaan ma garanayo inay ballantii fuliyeen iyo kale marka كو جاليها وطنك ودمر كلا جوجا جاليد هولن dad badan oo kamida oo reer baarlamaanka ku jira oo way ka duwan tahay sanadii hore waxa laga yaabaa cidina noogu jirin laakiin hadda dad baa ku jira dadkaas ku jira horta ko infarnitan dawladda ay baarlamaanka dhexda gaarsiiyaan iyaga og dhibaatada halka dad ku haysata iyaga soo maray waxootinimo magar waxa laga yaabaa qaarkood inay jahliyada u shaqayn jireen gasaas darteed kanaal fiican bay noqon kartaa oo la isku kala qaato ali inkastoo barnaamijku gargarayahay maxaa ku darleed ugu dambeyntii waxa aan ku dari lahaa in dadka Soomaaliyeed oo qaxootiga ah oo dhibaatadu haysato sida kul dhaweed uu abukaatu sheegay wadankan hadii mar criminal record ad yeelato haba yaraade macnaha gaadiidka dadweynaha oo aad khalad ku raacday oo laga waayay kaar ayaad isku arki kartaa booliiska dabadeetna waxaad noqon kartaa dambiile marka dadka Soomaalida ah iyadoo dhibaato kasta ay haysato dad fara badan oo dareensana jira dhibaatada haysta dad Hollandeesa dad Soomaali ah dad Muslim dad cadaan dad gala marka iyaguna inay is ilaaliyaan oo ay ka taxadiraan wax kasta oo dambi ka dhalan karo sababtoo ah haddii mar dadkaasi record dambi ay yeeshaan waxay u keenaysaa mushkilad sida abukaata uu sheegay mar dambe marka taasna inay maaragtay dhaqankooda inay wanaajiyaan oo dad nabadeed ay noqdaan oo aysan mushkilada keenin oo dambiyada noocay doonta hata inay iska ilaaliyaan taasoo kula dardaarmayna waa masan tahay cali waare iyo muuse xirsi
barnaamijkeena daawadayaal caawa intaasi ayaanu kusoo gabagabanaynaa inta aynu mar kale dib ugu kulmi doonaa barnaamij mid kan oo kale dhammaantayaba waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo